Waxa ay dishay hooyadeed iyo aabaheed, balse 4 sano kadib markii ay booliiska ridda u soo garaaceen, waxa ay la yaabtay sababta ay intaasi oo dhan ay u fahmi waayeen booliiska iyo dariska ay la degan tahay in ay hooyadeed iyo aabaheed iyadu ay dishay. Intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato, waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Haweeneydan aynu ka sheekeynayno waxaa la yiraahdaa Virginia, waxaynu ku nooshahay dalka England. Waxa ay dishay hooyadeed iyo aabaheed si lacagta hooyadeed iyo aabaheed ay leeyihiin iyada ugu raaxaysato waxa ay rabtana ugu samayso. Lacagihii ugu badnaa waxa ay ku ciyaartay qamaar, sidoo kalena waxa ay ku kireysatay guri weyn oo iyadu ay leedahay milkiyad ahaan ilaa muddo dhowr sanadood ah. Haweeneydan oo 36 jir ah ayaa waxaa la ogaaday 4 sano kadib in hooyadeed iyo aabaheed iyadu ay dishay, waxaana gacanta ku soo dhigay booliiska ugu dambeyn. Dhaqdhaqaaqa guriga qoyskan oo ku yaala meel u dhow badweynta Chelmsford ee dalka England ayaa noqday mid qarsoodi ah, waxaana baaritaan lagu waday tan iyo sanadkii 2019. Virginia oo ahayd gabadha qoyskan samaysayna dhacdadan ayaa waxa ay garatay kadib markii booliiska ay soo garaaceen gurigeeda ujeedka ay u socdaan. Kama aysan furin guriga oo waa ay ku dhageysatay ilaa markii dambe ay booliiska soo jebiyaan guriga, waxayna la yaabtay sababta muddada intaasi la-eg ay booliiska iyo dadkii dariska ahaa ay u ogaan waayeen in ay dishay waalidkeed. Qaraabada iyo asxaabta ayaa lagu wargeliyay in aysan booqan waalidiinta Virginia, sidoo kalena aysan tegin meel u dhow xeebta, balse xaqiiqada ayaa ahayd mid aad u naxdin badan. Waxa ay noqotay xaalad murugo leh oo aan la ogeyn wixii dhacay 4 sano ka hor iyo sababta ay u xirnaayeen albaabada gurigan markasta. John oo ahaa aabaha qoyskan, da'diisu waxay ahayd 70 jir. Waxa uu ahaa bare culuumta daraasadda la xiriirta ganacsiga dhiga, waxayna gabadhiisa ay u dishay si xun, waxayna meydkiisa ku qarisay xabaal laga dhisay walxo la isku ururshay oo ay ku jiraan bustayaal. Sidoo kale xaaskiisa oo ahayd 71 jir laguna magacaabi jiray Lourdes ayaa iyaduna meydkeeda waxaa lagu qariyay bustayaal, shandado iyo sidoo kale maryo la isku ururiyay. Hooyada ayaa loo dilay qaab arxan daran kadib markii gabadhan ay siisay sun ay ku dhiman weyday. Waxa ay samaysay in ay dube ama burus kaga garaacdo madaxa, sidoo kalena ay la dhacdo toorey, sidaasina ay ku dhimatay hooyadii qoyska. Gabadhan oo lagu magacaabo Virginia oo ah 36 jir ay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im, kaas oo ah dilkii ay u geysatay waalidiinteeda. Daahyada gurigan markasta ma ahayn mid dhaqaaqa oo ma ogaan karin in gurigan uu qof ku jiro iyo in kale. Sidaas waxaa yiri mid ka mid ah dariskeeda oo muddo 20 sano ka badan daris la ahaa. Ninkan waxa uu ogaaday sababta gurigan daris kale ah oo mar walba u xirnaa. Aad ayay iigu adkaatay in aan maqlo warka ah in Virginia ay dishay waalidkeeda, ayuu raaciyay hadalkiisa. Waxay ahayd mid farxad badan ku dheehan tahay, waa ay kaftan badneyd, iyadu waxay ahayd qof ixtiraam badan, waxay lahayd shakhsiyad qarsoon oo kaftan badan, ayuu hadalkiisa intaa raaciyay. Bishii Sebtembar 2023, kooxda ilaalada ee deegaanka ayaa xiriir la sameeyay booliiska gobolka. Qof dadka waayeelka xanaaneeya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda ay ku sugan yihiin John iyo Lourdes, wuxuuna sheegay in muddo uusan arkin, sidaas darteedna uu ka murugaysan yahay daryeelka labadan waayeelka ah. Waalidiintan maqnaashahooda waxaa sharaxaad ka bixisay gabadhooda, waxayna u samaysay cudurdaar iyada oo ka baaqan jirtay mar walba xilliyada ballamaha loo qabto, balse waxaa jirtay xaalad keentay in cudurdaarkeedaas la aqbalo, sababtoo ah xilligaasi adduunka oo dhan wuxuu xanibaad ugu jiray caabuqii COVID-19. balse booliiska ayaa dhowr jeer weydiiyay halka ay ku maqan yihiin waalidiinta. Gabadhanna si wanaagsan maysan ugu jawaabin, oo caddaymo dheeraad ah waa ay heli waayeen booliiska. Markii ay booliiska guriga weerareen, ma aysan ahayn markoodii ugu horreysay oo ay gurigaasi tagaan. Toddobaadyo ka hor inta aan meydka labadan waalid la helin, saraakiisha ayaa waxaa gurigan ku martiqaaday gabadhan dilaaga ah, waxayna kala hadashay dhacdada kiiskan. Dukumiintiyo laga helay gurigan dhexdiisa ayaa muujinayay in haweeneydan isku dayday
sidii ay waalidiinteeda ugu qarin lahayd lacago ay qarinaysay. Sidoo kale waxa ay ku takrifashay hantidooda iyada oo ka bixin jirtay kirada guriga ay degan tahay. Dhanka kale waxa ay deymo ku qaadan jirtay magacyada waalidkeed. Waxay ahayd aqoon-yahanada qorsheynaysay in ay farshaxanka meel sare ka gaarto si ay dhaqaale badan ugu samayso. Balse taas beddelkeeda waxa ay guranaysay dhaqaalaha waalidkeeda iyada oo isdaba marinaysa xogta iyo siyaabaha ay u adeegsanayso. Gabadhan ayaa waxa ay qarash garaysay lacag dhan 1,49,697 lacagta Yuuraha ah, waxaana lacagtaasi ay isticmaalaysay waalidkeeda inta ay noolaayeen iyo markii ay dishay kadib. Maxkamadda ayaa sidoo kale la hor keenay xog sheegaysa in 21,000 oo lacagta Yuuraha ah ay ku bixisay khamaar lagu ciyaaro internetka sanadihii u dhaxeeyay 2019 ilaa 2023. Caddeymo iyo xogo la xiriira kiiskan kadib, haweeneydan ayaa qiratay in ay gashay kiiskan si kas ahna ay u dishay waalidkeed.